هذا كعصبتها سبسكرايب نوصار مقالكنا لايك نوصار كسو dhawaada sheekada horka koowaad runtii aniga gurigeyga kaligay ayaan joogay waxayna ahayd 6 saac bar habeenimo jikada ayaan cunto u soo doontay runtii dhanka daaqada ayaan waxaan ka maqlay shanqar qof ayaan xufta ku maray runtii qofkaas waxay ahayd gabar dariskeena degan ayaa daaqada soo istaagtay markiiba hadana daaqada way ka baabaaday oo way ka carartay runtii dhanka daaqada markaan aaday waan waayay hoos markaan u fiiriyay daaqada dhankeeda waxaan arkay laba yaanyuur oo meesha taagtaagan anigana zaid ayaa markaas u cabsooday waxa isweydiiyay inay riyo ahayd iyo inay kalo kadib waxaan aaday cid dariska inaan u soo sheego arinta jirto gabdhaha dariska ayaan mooday runtii aad ayaan markaas u cabsooday kaligay ayaan cid joogay kadib cid dariska markaan u tagay waxaan u sheegay waxay soo fiirnaayeen iniga runtii aad ay kana markaas u baqeen gabadha waxay ii sheegtay inay ayada ahayn oo runtii aad ayadana u cabsanaysay waxay tiri ninkeyga ayaa caaw ii imaaday wuxuuna ii sheegay inuu qof markaas dhibaayo wuxuu ninkeyga ii sheegay jikada anoo joogo inuu qof soo fiirinayo naag kadibna aniga ayuu imooday waxay kale igu dhahay naagtaas markasta way soo fiirin jirtay daaqadana way iga soo fiirin jirtay albaabkan way soo istaagi jirtay jikada runtii marka waxaan u maleynayaa inay saaxiibta tahay ayuu igu yiri ninkeyga runtii aad ayay markastana iigu soo dhawaataa daqiiqado kadibna waan waayaa runtii habeenkaas aad ayaan aniga naftigeyga u naxay arintan aad ayaan markaas ugu naxay saaxiibtay waxay tiri gabadhan waxaan u maleynayaa hada koor inay soo daba gashay ashag sheegaysiin aniga xataa riyo iyo waxay aad ayaa kala garan waayay kuma mashquulin anigoo gurigeyga markaas joogo ayaa albaabka igu soo gargaraacay runtii albaabka intaana gaarin qof ayaa markaas iska soo furay albaabka aniga markaas ayaan cabsooday arintii igu dhacday inay gabdhahan ku dhaceen aad ayaa markaas u siinaxay runtii gabadha ila joogtana sheekadan waxay dhacday waa sheeko igu dhacday aniga dhan sheekadan wayna saameysay runtii gabadha waxaan ogaanay bishii dambe ayaa waxaan ogaanay gurigan in lagu dilay ee degnaan jirtay